waxaa kuu soo hartay tiri gabadhaydu waxayba la socotaaba kuwa mulxidiin ah laa diini ah oo ilaahay aan aqoonin rasuul aan ka saynin oo wax walbo xun ah ayay la socotaa oo jeceshahay xijaab warkiis ma jiro بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا عليه لما أنت ملك السعد جوكتان سود هذا واندين سلامي كسر هذا جنال كيغا آمنا شيقنا مركل يسكو صور نقد حيسالة أو حيسالة أو آدي هذا حيسالة آدي هذا أقول فرح سنة هاي مركل إنا سوفريستو وجيدينا قروحدا بدن markale inaan soo hor fariisto wajidiina quruxda badan maanta waxa u maleysay hadalka xataa inuu iga dhudhumo sheekada aan soo wada leeyahay wax kale ma ahan suuq idinka aad u mahadsantihiin maanta waxaan wadaa qiso ma aragtay oo qumbulah ma laha mise qarax qiso dab iyo holac ahaan wadaa oo suuratul baqara oo cajiib ah yaa gabar hoog oo ka soo dhex bixi doona meeshan yaa oo waxaan ku dhahay dhaxda intuu xirto dhihi doona anaa iskoorkaas jebinayo commentiga idinku sugaa insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo qisada intaan u guda galin waxaan rabaa insha Allah in ay la dabaaldegtiin waxay kula dabaaldegaysiin 10 kun xirnay maanta 10 kun ayaan xirnay oo bulshada maanta nagu xiran waa 10 kun alxamdulilaahi rabbil caalamiin hadi aad u mahadsantihiin sida uu la falgasheen fiidiyoyaasha sida uu share gareyseen sida maxaa la dhahay aad commentiga uga soo bixiseen horta ayaanta inta video soo dhigo agalebo comment dhan ma fiirin maanta commentiyaasha fiiriyay wallahi waa wax lagu farxo commenti aad u tira badan oo qurux badan ducale oo waxa ku amaan leh oo dhiirigelin leh jazaakumullahu khayr maxaa kale idin dhaha ila dabaaldega ila farxa asxaabta igu xiran 10 kun maanta galnay intaas idinka gaarsiiyay intaas in ka badan insha Allah idinka raba waxa maanta la soo fadhiyo meesha oo ayaantan aan ku dhahay isugu soo daba xiriirino fiidiyoyaasha ya ilaahay fadligiisa ka saka waxa waaye dhiirigelintiina waa wallahi alcadiim dhiirigelintiina waaye marka aad u mahadsantiin insha Allah meesha ka sii wada adiga hadaan ugu cusub tahay nagu soo biir hadaa hore noola joogtay qalbiga ku taala qofka soo maaragtay nagu cusubna ha ku soo dhawaada maaragtay gogol furan gacmo furan qalbi furan albaab furan wax kasto aad u mahadsantiin qisada inoo guda gala insha Allah intaasna farxad leh waaye talo hadii maxaa la dhahay bishan gudaheeda 20 kun gaaro waxa ka cabsana inta idin dhaqisa idin soo duuba hadalka dhan inuu iga dhudhumo hadeertaana inta ma sha Allah ku farxay Allah idinka farxiyo aad u mahadsantiin qisada maanta idin wado subhanallah suuratul baqara qof kuliibaanay laakiin yani meeshan ay taala qoobka meeshan uu yaalay ka dhaqaajin karo waxa ka sheekeynayso qisada gabadhii oo qisadaas ma aragtay la kulantay suuratul baqara la noolaatay ka hor sidee ahayd ka dambe sidee noqotay waxay tiri waxay u soo dirtay shiiqay u soo dirtay codkeeda way u soo duubtay shiiqay u soo dirtay ayada ka sheekeynayso waxay tiri markay salaam ku bilowday kadib waxay tiri aniga waxaan ii sheeg ku noolahay wadanka Faransiiska waxaan ahay looyarad waxaan leeyahay tiri 3 caruur ah laba wiil iyo hal gabar laga yaabo qisada dad badan xataa inay oo asxaabteeda kamid ah bismillah doonta xab ii fadhiya hadalka dhibaa dad badan asxaabteeda kamid ah oo inay qisada dhageysteen laga yaabaa laakiin waxa huba inta dhageysan ka badan tahay insha Allah waxay tiri 3 caruuran leeyahay laba wiil iyo gabar waaye aniga looyaradaan ahay oo heer doctor ahaan gaaray doctor ah ayaan gaaray yani darajo sareysan ka gaaray waxbarashada hooyo kaligeedaan ahay tiri waxay tiri maadaama waxay dhahday oo aan yani looyarad ahay tiri yani sida caadiga waxay tiri noloshayda inay hay noqoto maadaama qarash fara badan isoo galaayo maadaama oo aan qof isku filan oo shaqaysanaysa maanta oo Yurub ku nool waxay tiri noloshu waxay ila noqotay tiri ciriiri noloshu waxay ila noqotay cadaab noloshu waxay ila noqotay rafaad waxay tiri risqi male baraka daray tiri risqiga
shaqada ma rabi ay tiri inaan aado. waxay tiri guurkeygii wuu burburay, shaqo ma rabi inaan aaday tiri, waxaynaan qabsada ma rabo, shaqaalaha dhibaata iga haysato, xafiiska dhibaata igu haysato, waxay tiri meel walba dhibaata iga haysato, waxay tiri ma farxo, ma hurda, ma harsada, ma hoydo, waxay tiri rajo ma lihi. yacni qof waxa ahay tiri oo nooleen oon dhiman camal ahay tiri, nolosha cadaaban ku qabay, yacni meesha in lagu raaxaysto nolosha. waxay tiri saan sidii u ahaayay tiri, aniga waxay tiri maba ogeynay tiri quraankan barnaamijkan badahan maba ku jirinay tiri, ma fahamtay, noloshayda caadiga iska bursanayay. maalmaha kamid ah shiiqay magaciisa sheegtay, shiiqaas hadda magaciisa ma xasuusto. maalmaha kamid waxay tiri shiiqaas iga soo horbaxay tiri aniga wax iska fiirsanayo oo dhahayo suuratul baqara aqrista insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo noloshiina khayr ayay ahaan doontaa, noloshiina khayr ay noqon doontaa. waxay tiri waa booday, waxaan bilaabay tiri yoomiyan inaan suuratul baqara aqriyo. waxaan galay tiri caalam Ilaahay subxaanahu wa ta'ala, Ilaahay subxaanahu wa ta'ala xaalkiisa og yahaan galay tiri, oo waxay tiri oo kaali iska aragay jaw deganaan galay adi. culeysyadii waa iga qafiif noqdeen tiri. dhowr sanaan ku aqrinooyaa tiri suuratul baqara maalintii hal jeer. laakiin waxay tiri wax iska kee furfuray male, silicii saxriirtii ziyaadadeedo qamigii aan ku jiray waa ka bixay tiri wax yar. laakiin waxay tiri bahash meeshii aan rabay meel u dhow ma joogto, shaqadii sidii uga xirxirana. waxay tiri wax allaali waxaan sameey isdhaho ma sameyn karo, wax ii dhamaystirmaayo ma jiraan, tawfiiq ma jirto. waxay tiri yacni waxay tiri xayaatadaydu waxay tiri wixii soo galay meesha ku baxaan ma aqaano. waxay tiri ilmahayga waxay tiri mid ka yar iskoolka waxay tiri rabsho cashir ma dhageysto, waa igu rafaadiya iskoolka, dacwo maalin walba u taagana. waxaa kuu soo hartay tiri gabadhaydu waxayba la socotaaba kuwa mulxidiin ah, laa diini ah, oo ilaahay aan aqoonin, rasuul aan ka saynin, oo wax walbo xun ah ayay la socotaa oo jeceshahay. xijaab warkiis ma jiro. faransa iska taqaani ma hooye ayadaaba qofka xijaabka waxta laga qaado yahay qof aan rabin inta warkiis jira. waxay tiri warikayga ma maqasho, kan kala ka daranay tiri wax barashadiisa waa dayacay, buuq istruba aan dhamaanaynay tiri, guriga baraka male, raaxa male, liibaan male, yacni man nolol male tiri. laakiin culeyskii ziyaadada silci weynaa Ilaahay wuu iga soo saaray tiri, waa marka aan bilaabo hal mar inaan suuratul baqara aqriyo. laakiin waxay tiri wax walba sidood waay. waxay tiri anigoo yaabanay tiri oo isdhaha intee lagaaga imaaday, noloshaan maxay tahay rafaadkan ku haysto, oo sanadan aqrinayo suuratul baqara maalintii hal mar. ayaa waxay tiri shiiqa hadda iyo qisad u soo dirayso ayaa waxay tiri arkay. waxay tiri asagoo dhahayo suuratul baqara hal la aqriyo. mujadin tirada 4 jeer maalintii suuratul baqara ha cararina jooga. qisada yacni 4 jeer in la aqriyo nolosha ka dambaysa way u qalantaa. yacni marka aad dhageysatid waxa ka dambeeyo adaa dhigi doona abo ana ama u baahnaay le ama ana u baahnaay le 4 jeer in aqriyo suuratul baqara. waxay tiri alxamdulilah ilaahay fadligiisa shiiqii usoo sheegay ma ogtahay. waxay tiri waxaan arkay adigoo dhahay 4 jeer suuratul baqara ha la aqriyo iyo istighfaarta. suuratul baqara maca istighfaari suuratul baqara la isku daraayo ha la aqriyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala culeysyada wuu ku furi doonaa. gabadhaas حسد تفريق تعطيل توفيق الآن سحر وحان لو سمين انقر كيدا كجري ماله. waxay tiri mar allaaliya markaan arkay tiri dabcan qof xanuunsan kaniinigan cab maba diidaba. marka aan nolosha quus ka taagan tahay dab ku socodii lagu dhawaa caafimaadee ma arkaysa xanuunkaas dabkaas da ku taagan tahay. maxaa yeelay waxaa rabtaa caafimaadka ka dambeeyo. ma aqaana neeftu idiboosaa maanta. neeftu idiboosaa laakiin yeelkadeeda looma joojinayo. dabka ka dambeeyo
يعني dabkaas oo ku istaagay laakiin nolosha ka dambe saartaa dabcan dadaaba lagu baamo anaka wadankeen waa isgubnaa qofka dabaa lagu dhajinaa si wax xanuunka uga baabao waxay tiri mar la markaa maqlay tiri waa booday tiri suuratul baqara fadhistay tiri ilaahay aan tala saartay suuratul baqara 4 jeer maalintii waxa ka sii daran استغفرت ما أخرني ما تقانين يعني قف أبودس من نقون كرت تاس ولا ليال تاس وتوفيق من الله ووحى أنت أفر إنه ما أنت إنه إله سبحانه وتعالى أنكبر يينه إنه إله سبحانه وتعالى نوافجه استغفار وحي تروحان أقرنا يي 30,000 هذا أنا قلت أفهمين لك يا بايناني قلت أفهمين لكنها سحنها أبدنا 30,000 dadka carabiga yaqaan way soo dhageysan karaan qisadaas 30,000 waa 30,000 oo istighfaar iyo 4 jeer oo suuratul baqara waxba la yaabin waxa way wadu ilaahay fududay way fududaanaysa laakiin midaan idin sheegaa qasab ma aha numberka walaashas ay xirtay ina soo xirtiin istighfaarta laakiin waxa idin kula dadaalaa inta awoodiin ina akhrisin suuratul baqara هل جرد أقرن جرتين كبديسين لبا هذا أقرن جرتين أكبديسين هذه أصدق أقرن جرتين أكبديسين إذا كلت لنا إن شاء الله إلهي نوا أجبر يا نفتي نفتينا استغفرتنا أنتي أد أبودين قدرة هل بأنتي لبادين كره لباديو وحاس ناقني ما لقوا ما أبوده السنة لقوا ما أبوده ولكن وحلقوا أبوده توفيق من الله لقوا أبوده وحسي إلهي سبحانه وتعالى توفيق ليس أيا لقوا أبوده إلهي waxa ka barina inuu nawaafajiyo waxay tiri gabadhii marka aan bilaaway arintaas hal sano akhrinuusa ramadaankii hore bilowday hal sano akhrinuusa qisad hal bil ka hore laga soo sheekiyay waxay tiri wax walbo anigu u jeeda isfurfureen tiri wallahi waxyaabaha gabadhaas markay sheekeynaysa ilaahay khayr siiye waxa umalaysa in aan iga sheekeynaysa amal dareemayay waxa rabtaa inaa samaysid ما سمين كرتيد بقول برنامج مسكحة كسر دعاء لكن ما سمين كرتيد وحى ما أنت بالله لكن ما دام استريسد وحيتر ما شان ودقاقة وحيتر دربي ما شان ودقاقة وحيتر دربي يعني قفك مركم مرول بصوف الشلم هل شيء لم يستري كرين والله قلبي وكعذاب ما مسكحة وكعذاب ما قفك مسكحة وكنولي هاي حبني هنا وحاكو حرحرا وحذا نقرنين وحاو ما قبن كرتيد تلاو ما قاعد كرتي waxay tii albaabka ka bixi kari shaqadeyda ma rabina aado xafiiska ma rabina aado ilmahayga anigu waxay tii rafaad saacaday rabaani soo galayaan guriga saacaday rabaani ka baxayaan anigu waxay tii risqiga baraka daro noloshii baraka daro gurigii buuq ma hagaajisma walaalayaal dhibaatooyinkaas markay qofka oo yaani ay haysato guriga taa ma hagaagsamaayo waa daalaysa ade laakiin shayna shay dul saarta laga ma yaabo nafta ka dhacayso نفتا كادعيسو wax qaban kartidna male waxay tiri markaan waday tir shay walba waxay tiri wuu soo hagaagay kow nafsiyadeedii ayaa horta waxay tiri hagaagtay farxadaan helay tiri waxaan dareemay tiri ina ahay qof nool oo ana mishiin ahaan oo ibn aadan nafta ku jirto waxa soo noqotay tiri rajadii rabitaan ina shay rabtid ina samaysid waxa soo laabatay tiri ina shayga arab ina sameeyo waxa soo laabatay tir ina adduunyadeedii aakhiradeeda hammi aan u yeeshto aan wax qabsado shaqadeedii aan fariid ahaado tir aan laab oo orday tir shaqadeeda soo qabsado gurigii aan wax ka qabtay tiri haddaba ogow hooyo yurub ku nool caruur haysato looyarad ah maxaa looyar ka dhib badan oo ka mashquul badan hooyadaydo xanuunsanay tiri oo sariir ku aruursan oo ay joogtahay tiri hooyo kaligeedna waa ah waxay tiri 4 jeer saasan wadaay tiri maalintii 30,000 istighfaar akhrinay tiri markaasa walaal in saas aheedan jecelahay 30,000 istighfaar inay tiri 30,000 istighfaar maalintii waxay tiri mar allaali marka inta xoog saaray dhahad oo ilaahay u jeestay tiri on ilaahay u soo jeestay aniga tiri oo ilaahay ina raali geliyo sababtoo waxay tiri saan ilaahay u bariyay maalintii hal jeer suuratul baqara akhri wax kasta samee waxay tiri wax walba sidooda walaashi waxay dhahday waxa jirtay tiri walaalayaal
وحاجرتي تري ذنوب أنا كل حجر أنا كأن أجيني تري وآد يدوين وأباهني تري استغفار فربضن يا ذكر فربضن وإلهي عرضي سنة قدم يسوع إلهي نقرها على نقدنا على إيمانه تاسو ويعني هرتاجني تري بريدنا أنا يعني إلهي أنا كأحذينا دعاءنا وح سوء علينا وح تري وذنوب أنا جا أجين أما ذنوب حجمي جذو وين هذي وايتري وأنا جان أجين أما امتحان حجمي يسويني هاي وايتري محل ده هاي ولا ليال وفير صدا قفا وح أركيسا وحو كلي هاي لبعتها سيهيستي سليق نبينا نكون كأخريناي أما استغفارا نكون كأخريناي إلهي سبحانه وتعالى إبكي ونو إيقا هذا قف كاس امتحانكي وإلهي وامتحامي أي قدر كاس لإك أي قدر كاس لوغ بهنا أما عذركي إيه وحي أساق هاي أي حجمي قوة انت سلئك هذا وكفلنا هذا أما قف كان امتحانك كوين هاي وهالمر سورة البقرة أقرينا هاي أما وحي الاستغفار الإيمانة أما ذكريك الإيمانة وولي لكن امتحانك سؤوتاقي هاي معنى هذا وحاواية امتحانك ويعني وأذيقي هايو وأذيقنا أكيست وأذيقنا لا إماتت محل ده هاي ذكري انت سكبضن إن لا إماتي ذا لغا أربا محايا لي ذنبي واي لما إيه كرا سببتو نبي أيوب عليه السلام ونبي أيوب أنبياء أقو امتحان درن waxaa ku xigo saalixiintaana ku xigo qof walba qofku ka iimaan badan yahay ayuu ka imtixaan badan yahay walaalayaal sida loo imtixaamay ashad al-imtixaan la mariyay nabi ayub alayhi salaam kadib ilaahay subhanahu wa ta'ala faraj ayuu u furay marka waxay tiri walaalayaal yaani dhunub anaga ogeena jirto ama darajo ilaahay subhanahu wa ta'ala oo nala doono anaga ogeena jirto waxaan idinka codsanaayna waxay tiri istighfaarta badisiin oo aad tijaabisiin إلهي سبحانه وتعالى قرب كينا إنه قاله إن سورة البقرة أفرجر ما أنت أغرسين قبلي وحي تري وحوال بأسو كيف فرفورين شقدي أوكي نقطي قولي أوكي نقطي نلش أوكي نقطي رزقي أوكي وحي تري رزقي سيدي رب أيو إلهي سبحانه وتعالى يبسو دجي تري لعقو ميل أي كإيماني سآنا أوغيني تري اسكا كإيماني سو waxay tiri guurka waa la iga xarimay tiri guurka waa la iga xarimay oo waxay tiri guuri ma hagaagaynin oo ima suurta galin inaan guursado waxa dhacday tiri ilaahay subhanahu wa ta'ala in hooyadeedii xanuunsaneed arimaheedii ii fududeeyay oo waxay tiri aan xajka cimro ilaahay ii qoray tiri cimro waligii aan kuriyoonay tiri cimro ali qoray tiri maxay ilaa albaabka ka bax ma ogoleynay tiri iska daa inaan cimro aado safarina aada laga ma yaabin ina meel aada laga ma yaabin tiri ilaahay markuu farxad waxay tiri qalbigayga galiyay oo nuur qalbigayga galiyay oo gurigayga barakada waxay tiri samada roobka sidoo uga soo daa ilaahay uga soo dajiyay waxa ku xigay arka marka waxay tiri gabadhaydiisi u joogtay waxay tiri hooyo cimrada markaan ka imaaday tiri hooyo صباح شابي إلى صوصمي أنت صباح حجابي إلى صوقت حجابي إلى صوقت عبايدة إلى صوقت أنا جوا حيتي مرة بنولشان وحربة وحدي جواني نسي ها صاحب بدن حن هاي وكهرة تلا هذا يلا وأنا حجابنا قرآن كي دين تيدن أسوجي السنة الله أكبر وحيتي فرحت قبل وحيتي شوبين لصوصمي وحيتي محل عبايد وصوصمي حجابي حيرتي وحيتي قبل إذا أيضا وحي بلوضي تريني يعني أنت صدق كن استغفارني أغرسي بلوضة لين أين هذا نجعله يعني الاستغفار حتى كذا أنا ترين كرني قبل إذا بلوضي تريني أغرسه قرآن أغرسي تري أو حجابتي تري وحبرشة ذي وحي تري إلهي توفيقي تري نجاح جامعة ذا نجاحي تري كالي أرك وحكوصر تري ويلكي ساقط كأها ساعدوا لجوري إيماني وحبرشة كلا جعلين وحي تري أصلاً استغفارته لازم تري هو استغفاران رباع صلاة دي وحي تري وبلاوي لما تكون جرني تري إلهي لما أقونين وحي تري صلاة دي الله بلاوي كالي أرقي تري نولوشا فرحة دا كي راي تري أو مالين والبوحي تري أنا حفيز كتاقناي تري اللي دعويناي وحان عنك سئوي اللي وهاي وحي تري نبت قليدة لقاها لي معلمين توالي بينهن وحي لذاني الماجي اسمع أركي جرني تري مالا السلامة يتري سلامة الاسكما قاذي جرين حد وحاد عذي تري إلا سلاسو فريستو والله ليال هدا أركتين فميل isjecel isla fadhiyo iswareysanaayo waqti isla qaadanayo
ما أها رجل وحل سمي شرعي لسميه إيو يعني جدول أن دقني إيو وحس ما أها والله وتوفيق من الله قف والبو إمني آدنه شيخ إيه شريف مؤمني منافق واجعليهن فملكي سنتي وذا فلسطاني لا شيكستاني راح دريمان غورغود markay soo galaan laakiin waa familka marka arkiis inay isla fadhiyaan isdhageysanayaan naxariis dhaxdooda ay taalo ay dhaxdooda maxal mutabaadil u yaalo oo qof kale oo maqlaa ixtiraamay waqti isla qaadanay arkiisid la isla qoslaayo waa wax ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ku manaysta qofkii noloshaas haysto ugu waxa ka fiican oo inta ka fiican adiga ahaysan lahayd ma jiree ilaahay ku xamdi allahna ku zaaidiyo ilaahayna bari maxaa yeelay shayga laga xamdiyo ilaahay waa ziyaadiya waxay tiri saddexdeedii cunug qurratu ayni ii noqdeen tiri qurratu ayni ii noqdeen tiri hooyadeedii xanuunsanay tiri aan dhibaatada rafaadka isla mareynay tiri ilaahay subhanahu wa ta'ala waxay tiri kaali argay tiri umada markay cimrada aanadeen tiri waa ku rafaad hooyadeedii sariirta saarneed tiri orodkeeda dhacay tiri marka cimrada tagnay waxay tiri waa soo noqonay tiri wax walba oo noloshayda ku saabsanay tiri waxay noqdeen fi amil maxalla 100% ay noqdeen tiri boqolkiiba boqol ayay noqotay tiri nolosha jannatu dunya hadaa maqashay tiri waa tan ani maanta ah ku jiro sheeko ka si fiican waa soo socotaa waxay tiri maadaama guurka aan dhibaato ku qabay tiri oo guurki yani oo tawfiiq aanan ku lahayn tiri guurka wiil iga yar aniga ayaa waxay tiri isoo doontay walaalayaal guurka anaga dhinaceena waa si carabta dhinacooda waa si carabta guurka aad ayuu ula qiimo badan yahay aad ayuu ula sharaf badan yahay aad ayuu ugu weyn yahay agtooda anaga guurka wax qiimo agteena kama fadhiyo dad badan ma fahansano qiimaha guurka uu leeyahay حتى markii la guursanayo iska guursi u guursan dadka badana jadwal iyo nolol iyo ulajeedo looma guursado marka gabadhan waxay tiri suurtagal ma ahanay tiri adigoo aad inta la doono iga yahay tiri wiilka suurtagal ma ahanay tiri in maxaa la dhahayay oo carabta dhaxdeeda anaga dhaxdeena waa ogtay hal sanaday ka weyntahay gabadha ninka waxa la leeyahay wuu naag duqow aroosay waa ogtiin meesha la kala taagan yahay gabadha markay weyntahay waxay tiri inay familkiisi aqbalaan waxay tiri mustaxiil ahayd ilaahay subhanahu wa ta'ala waxay tiri waxawal ibna aadan kaba waxay tiri gaal islaam qabuul ayuu maxay qalbiyadooda iligay qofkii arko waa jeclaana qofkii arko waa riyaqa familkii waxay tiri marhaban ahlan wa sahlan marhaban alayhi tiri wala isoo dhaweeyay tiri wala maxay tiri ishaq waa hadda waa faraantay gashtay qutba ay dhan ayaga maxaa la dhahay ilaahay baa waxay tiri subhanahu wa ta'ala igu arsaaqay tiri maxaa la dhahay guurkii waa ii hagaagay awlaadii waa hagaageen caafimaadkii ilaahay waa ii soo celiyay tiri qalbi xanuun ma leh walwal ma leh walaac ma leh kurba ma leh waxay tiri wax soo dhaafay kama fakaro momentiga yani daqiiqada aan joogano waa ku raaxistaa wax iga maqano waxay tiri kama walwalo waxay tiri intaas waxa ka darnay tiri raaxatul baalka aan dareemayo ma Allah ilaahay la shirkiis aan ku dareemayo tiri ayaa wax walba ka darnay tiri gurigeygii ii hagaagay hooyadeydii alxamdulillah iyo caafimaaday ilmahaygii ilaahay ii soo hanuuniyay tiri istighfar 13 sano jiray tiri cunigeyga yarka ah oo istighfaarsanay tiri intaas oo istighfaar oo aqrina maalintii tiri kulligood salaadii laazimeen kulligood waxay tiri yani nolosha waxay noqotay tiri si ani filay maan si ka sii darnay noqotay tiri waxay wadaa arintaas walaasha muddo sanaday wadaa muddo hal sano ah ramadaankan mahani kii hore bilowday ilaa ay hadda way wadaa markay ka soo sheekeynaysa qisada waxay tiri 10 jeer aqri hadii la dhaxata qisada waxay tiri yani ma عندي اي مشكله hada su'aal idin weydiina marka meeqa gabdhooda jirto oo wax soo baratay laakiin guriga fadhiso meeqa gabdhood ayaa jirto intay wax soo barteen guriga fadhiyaan oo shahaadooyinkii jaamacadii riyadii wixii ay soo sameynayeen markii jaamacada shahaadada soo qaateen oo meel iska fadhistay la fikrad aan jirin lagu shaqeysto wala hami aan jirin meeqa gabdhood ayaa maxal lahayeen waxa la gargaraacoya meeqa gabdhood ayaa maxal lahayay guurkii meel ka soo fadhistay oo maanta markii inay sheekaystaan in maxal lahaay sheeg bariba ninkii markii oo go'aan la gaarin la guursado oo go'aan lagu gaaro ama xaqiisa oo sheekada ay ka xumaanayso ama gabadha xageeda ay ka xumaanayso meeqa maxaa la dhahayay ganacsi intay isku dayeen fashilmay
meeqa xirfad leh oo xirfadoodii ku shaqaysan la, meeqa hooyo ama wiil ama aabo ama gabar oo gurigoodii noloshoodii wax u qabsala, meeqa wiila maanta laga yaabaa inay maxaa la dhahay oo familkoodii fahansaneen oo waxaan ku dhaday xaajiyada la hadasho oo maxaa la dhahay oo dhibsanaayo oo u maleeyaba in asaga laga gardaran yahay, meeqa maxaa la dhahay wiil maanta guurkii ka xun yahay oo gabar guurkii ka xun yahay oo waxaan ku dhahay gabadha ilmiheeda in isfahmayno oo guriga wax ka qabsan karin. walaalayaal meeqa maanta urugadaas la nool, meeqa maanta isdhahoyso isheeg maxaa la dhahay wallahi saasaa rabi laha, oo markii oo aragtid qof wax qabsanaya adiga qalbiga ka oyso isdhaad ilaahay rabbiyo ana ii kas inaan qabsado, qofkaas walaalkaana u ziyaadi. walaalayaal tira male taas, tira malaha. ilaahay waxaa ka barya tawfiiq inuu nagu arsaaqo, ilaahay subxaanahu watacaala inuu na waafajiyo. qof walba imtixaankiisa meel ayuu joogaaye, adiga ilaahay subxaanahu watacaala wixii awoodaada ah ku tawasul. laakiin nafta hala ag dhigo, arintan nafta hala ag dhigo, waqtiga oo dhan hala geliyo. ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa anaga oo dhan ilaahay subxaanahu watacaala na caafiyo. walaalayaal wallahi waxyaabaha ugu xun maanta aan ka sheeganayno waxay tahay waa tawfiiq la-aan. wixii yaa rabtaa inaad samaysid ma samayn kartid, sababtaa u samaynaynin waxaa waaye xasadka qofka markuu haayo wax u samayn kara male. iyo tactiil الزواج hadii lagu sameeyo sixir ah, ama tactiil shuqul hadii lagu sameeyo oo maxaa la dhahay tawfiiq daro lagu sameeyo, waxaas dhan lagu sameeyo. yani walaalayaal qofkii wuu dadaalaa, cibaadadiisa way fiican tahay, haddana wax u hagaagaya male, talaabo qaadi kara male, shaygaa bilowdidna maba dhamaystiri kartidba. waxyaabaha ugu xun oo anaga la cawaadayna maanta oo yani dhibaatada ugu weyn oo haysato taas waaye. walaalahayga ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaa inuu taas naga saaro, tawfiiq nagu arsaaqo, oo hawsha aan bilownay ilaahay subxaanahu watacaala qalbigeena markuu kusoo rido aan hawsha qabano oon guul ka gaarno, oon adduunyadan kasira la joogaaye farxadaan ku noolaano. imaamu shaafici raximahullah wuxuu dhihi jiray qofka aan adduunyadan janna taale, qofkaan jannada adduunka ku noolaanin tan aakhira ma ku noolaanayo. ilaahay subxaanahu watacaala anagoo maxruumiinka ah maxaa la dhahay farxadda, guusha, shaqada, waxyaabaha badan anagoo maxruumiinka ah ilaahay subxaanahu watacaala nama ofsado. ilaahay waxaan ka baryaynaa adduunkan la joogana inuu ilaahay subxaanahu watacaala nolol wanaagsan nagu nooleeyo. waatuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku ducaysan jiray rabbanaa aatina fi dunya xasanatan wafi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar. marka anagana saasaa leenahay ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشفنا برحمتك التي شفيت بها أيوب بعد الابتلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم اخرجنا من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك ندفع ما لا نضيق ولا حول ولا قوة إلا بك يا رحمن. اللهم يا رحمن إنا نسألك نعمة تمامها والعافية دوامها وعيشا أرقدها. اللهم ارزقنا توفيقا من عندك، اللهم ارزقنا توفيقا من عندك، اللهم ارزقنا توفيقا من عندك برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي وحان كبريا تلاو ما شانو قادنا إلهي إنو قول نغسيو أو خيره. إلهي وحان كبريا عمل كان إنو نغيلو عمل كان وكيلا سعيا مشكورا إلهي سبحانه وتعالى إنو كيلا يا سعيقينا يهوشين عمل كاسوقبتين مد لقم هد عليوها الدوني آخر إلهي سبحانه وتعالى إنو ندها. ولا ليال قصدي هذه آتك معانيت انت نكسو قبينا بقرة هذا هل صورة هل مرجع كأخرين جرت مالنتي اسكو دينا كبديسيد فرصة هذا يوحى جنها كو حساب تمن إلهي سان وافجنا إن شاء الله أن إله نفتي وقبريا يذيك النفتين وقبريا حالة البوكو جرتين وإذن دباتين يسو إلهي سبحانه وتعالى إنه إذن كسار ونقبض السار إلهي إنه وافجي. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ظرفة عين. إلهو فرصدنا هنوغو هلين، إلهو إزديارنتنا هنوغو هلين، إلهو قوانكين هميكين هنوغو هلين، إلهو ربيتانكين كليه هنوغو هلين. إلهو هذين وكالمي إلهي سبحانه وتعالى وحكى بريا أن إنو يقو ليسي أرنتان إذن كده إذن كو ليسيو إلهي سبحانه وتعالى قصب ما هذا أبودي ويسي إنا أفرج الأخرسد لكن وفي عنتهاي إنا أفرج الأخرسد استغفارتنا أنت الله لي أنت أذيك أبودي إن شاء الله إنا لإماتت كل جين على إيمانه. وإذن جعل هاي يسوع دعاء وإذن سوى دعينا ساعد والبنقران كآخرسته وإذن سوى دعينا أنت إيقو حيرا أنت إفيرسته لما أنت الإسلام كأمدني محمد ورد أنت كسا أنت كسينين وأدعينا إذن كان يسوى دعايا
bidahri alqayb ducada qofka walaalka ka maqan u duceysid waa loo aqbalaa. sidoo kale walaalaha dad badan wax isoo weydiiyeen intaan kala soo xiriira walaalayaal wixii u baahan tihiin Facebook ayaad cod ahaan igu soo duubi kartaan insha Allah. qofkii ka fursan waa in la hadlana wuu isoo wici karaa laakiin codka ayaa ka fiican maadaama fursad aad iyo aad u yartahay insha Allah. intaas ku soo gabagabeynaya ilaahay idinkiisa video-gu u dheeraada u maleynaya laakiin waxa ila dheereeyay xiisaha qisada ay leedahay ilaahay ma sha Allah oo yani oo faa'iido ay leedahay. intaan insha Allah muuqaalkan muuqaal ka xigo ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa sidaas nabadgelyo fi amaanillaahi isku soo noqod xiisa mar kale la isku soo laabto wadan xiisa insha Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.